Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta guud ahaan aan uga tacsiyadeynayaa weerarkii bahalnimada ahaa ee xalay fiidkii lagu qaaday hoteelka Xayaat ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay joogeen dad Soomaaliyeed oo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iskugu jira, hadday noqon lahayd odayaal, hadday noqon lahayd ganacsato, hadday noqon lahayd dhalinyaro, hadday noqon lahayd haween, kuwaas oo waqtigooda rabay in ay ku raaxaystaan ama ku sheekaystaan ama shirar ku qaataan hoteelkaas, isla markaana lagu soo qaaday weerar bahalnimo ah oo runtii aanan loo meeldayin, laguna xasuuqay dhammaan qoysaskii dadkaasi ay ka baxeen iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaantood. Waxaan leeyahay ilaahay subxaanu qaadir, ilaahay hayna ka samirsiiyo, iyagana gacanka xaq daran ayaa dishay. Waxaan rajeynayaa ilaahay inuu jannada firdowsa u geeyo. Tacsi kadib waxaan rabaa inaan dul istaago aragtidayda gaarka ah ee ku aadan sida ay wax uga dhaceen hoteelkaas Xayaat ee magaalada Muqdisho tan iyo intii weerarkaasi uu socday. Anigu waan ka aamusnaa oo aan kama aan hadlin, waxaana fiirinayay bal inta howlgalka uu qaato iyo xilliga howlgalku uu dhammaado wixii aan ka oran lahaa inaan ka dhaho, bacdama meesha shaqo ka socoto, ciidamo operation ku jireen, inaan bal aan sugno xaalku meesha uu ku dambeeyo. Waxaa runtii aad wax looga xumaado ah in meeshaas ay ka dhacday fashil, ceeb iyo wax magaca Soomaaliyeed duniduna maanta ay makhaati ka tahay, ceeb iyo fashil in halkaas ay ka dhacday. Ciidamo kumanaan gaaraya, kumanaan oo billions dollar caalamkuna uu ku bixiyo, magaca Soomaaliyana lagu siiyo, ayaa ka howlgala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kuwaas oo 7 magac oo kala duwan ku howlgala. Ha oran Haram Cad, Gorgor, Alpha Group, Danab, ciidamada gaarka ah, madaxtooyo, booliska caadiga ah, nabad sugid, kuwa hadda Eritrea jooga, kuwa hadda tababaro ay u socdaan. Waxaana ceeb ah runtii in halkaasi ay ku jireen rag 12 nin gaaraya ay galeen. Qoryaha ay wataan iyo hubka ay wataan waxa ugu weyn oo ay qaadan kareen waa 7 qoryaha la yiraahdo BKM, AK iyo bambo F1 ah ayay ku howlgalayeen. Dabcan runtii ciidamada Soomaaliya ka howlgalayay magaalada Muqdisho ama tababarada la siinayay, kartidooda dadnimo anigu ma dhaliilayo, tababarkooda khaaskaana ma dhaliilayo, oo waxaan u arkaa inay yihiin niman dhalinyaro ah oo geesiyaal ah oo dagaalamay oo wixii ay haysteen ku dirirayay. Balse dhaliisha u weyn waxa aan siinayaa waxa weeye hoggaanka ciidanka Soomaaliyeed oo aan runtii u tababarnayn sidaan anigu isleeyahay hanaanka saxda ee looga hortagi karo weerarada noocan oo kale ah, ama markii dad lagu afduubto meel lagu qabsado sida looga howlgalayo. Hoggaanka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada ayaan runtii dhaliisha saraakiishooda ayaan saaraya, ma aha nimanka askarta ah. Dhalinyarada askarta ee Soomaaliyeed geesi ciidamada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan anu amaanayaan, hayaa duruufo adag ay ku shaqeeyaan, runtii in lagu tixgeliyana mudan. Naftooda ay horeen, dhiigooda ay bixiyeen, in badan oo kamid ah ku dhaawacmay, in badan oo kamid ah waa ay ku dhinteen, wixii ay qaban kareen tabartoodu ay qabteen. Balse meesha aan number 1 ka hadlayo waxa weeye in ciidankii saraakiisha hogaaminaysay aysan ahayn saraakiil u tababaran hanaanka saxda ee looga hortagi karo xaaladahan gaarka ah oo dhaca. Duur laguma dagaalamayo, magaalo gudaheedna xabad kama socoto, laakiin waxa weeye waa hotel, waa guri gudihiis operation ka dhacaya. In badan oo kamid ah dadka arrimaha aqoonta u leh waxa ay aaminsan yihiin ama codkayga anuguna ku biirinaya, number 1 ciidamada Soomaaliya ma haystaan ama ma ay haysan ciidamadii howlgalkaasi sameynayay wax u dhigma ama ka quality sareeya qalabkii loogu talagalay shaqadan in lagu qabto. Qalabkii shaqadan loogu talagalay in lagu qabto ma aysan haysan, oo ay ka mid tahay sunta dadka sooxisa, helicoptero laga rabay in cadowga ay uga hormaraan dabaqyada kore inay kor uga soo daataan. Sidoo kale waxa kaliya ay wateen waa inta nimanka cadowga ah ay wateen, ayaan oran karaa ayay wateen ciidanku. Laakiin tani waxay ceeb ku tahay, fashil la ku tahay in ciidankii magaca Soomaaliyeed intaas caalamku dhaqaalaha siinayay in ka badan 24 saacadood
dagaal oo halkaasi ay ku dhex marayeen koox yar oo qowlaysata ah oo argagixiso ah oo hadday ay dhintaanna naar gelaya in halkaas 24 saac ka badan howlgal uu ka socday dad baa hadda waxaan u arkaan howlgalka in la soo afjaray ama waxay oran doonaan dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay howlgalkii hotelka Xayaat laguma guuleysan howlgalkaas waa lagu fashilmay sababta loogu fashilmay waa idin sheegaya cadowga argagixisada laba aragti ama laba ujeedo ayaa ah targetkooda koowaad ay dagaalada dadka u dhibaateeyaan number 1 waa in dadka dhiigooda ay daadiyaan si maaragtay bilaa macno ah inay dadka u dilaan hotelkay soo galayaan qof walba ay arkaan ilmo saqiira iyo islaan waayeela iyo nin askari isku sib u xisaabsan yahay isku sib xabad ugu dhufanayaan horta number 1 in dadka dhiigooda la daadiyo number 2 waxa weeye in ummadda hantidoodana la burburiyo meeshaas dabcan saacadihii u dambeeyay waxaa dowladda Soomaaliya iyo madaxdii Soomaaliya ay go'aamiyeen in hotelka dhamaantiis dhulka la dhigo oo la burburiyo waxa isweydiin la marka dagaal meeshaas markii la soo weeraray waxa laga yaabaa wiil ama gabar lugta xabad uga dhacday oo socon weyday inay meel mus ah gashay fursada qashinkan Allah ka dhigay inay meel mus ah ay gashay oo ay sugaysay inta ciidamadu howlgalkan ku guuleysanayaan oo laga qaadayo meesha waxa laga yaabaa inay dhiigga iska xidhay ama wiilku lugta dhiigga iska xiray oo meeshaas shafka dhulka ku hayay haddii bal ka war madaxdii dowladda Soomaaliya ay go'aamiyeen in hotelkii la dudumiyo oo gabigiisaba dhulka la dhigo u fiirso 10 madfac baa lagu dhuftay laba wiil baa ka soo ridayay aqliga ummadda Soomaaliyeed ma waxa laga dhaadhicin karaa labada wiil oo xabadu ku dhacday oo xabadu ku socdaan ayaa loo waayay ma ahan ciidan kale afar wiil oo gudaha u gala si dadka kale loo badbaadiyo ciidamada Soomaaliyeed habeen iyo maalin waxay diyaar u yihiin inay naftooda ku waayaan inay u dhaawacmaan si ay dadka u badbaadiyaan askarina waa dhimasho joog xuquuqaha u qaatay waa inuu dalkay dadka u dhinto number 1 looma waayin daqiiqad baa lagu soo afjari karay anuu saan qabaartay ahaan laakiin halka waxa ka muuqata professional xumo iyo dayac iyo sidoo kale tan kale xoogaayo iyadana meesha ku jirta waxa weeye shaki ayaa ku gadaaman habka loo maamulay hotelka dagaalkiisi shaki weyn ayaa ka muuqda habka loo xaliyay ama operationkaasi loo fuliyay xagee rasaasta inta leeg ay ka keeneen nimanku rasaasta inta leeg ma hotelka hore loogu geeyay oo hore uga dagaalamayeen waxyaabaha qaybtoodu aniga maskaxdeeda ka guuxaysa waxa weeye inay dhaawacyada xataa isku dareen nimankan iyaga dhaawacyada inay isku dareen waxa kale suurtagal ah oo qof walba oo arintan si dhiibli u fiiriyo uu qiyaasi karaa maadaama meesha waxa yimid ciidamo aad u fara badan oo nooc walba leh booliska gaarka ah haram cad danab staafyo sargaal walba taliye qaybeed walba ama taliye walba saldhigeed oo meesha yimaada marka uu yartaa tumuulo staafa la socda lama kala garanayo maxaa u diidaya al-shabaabna magaalada muqdisho dhinac bay ka joogaan ayagoo hubaysan 10 wiil 8 wiil 20 wiil intay isku soo raacaan oo staafyada isku soo daraan inay gudaha soo dhex raacaan oo banaanka dad ciidanka jooga intay isku soo dhex daraan marka dambe si niman dagaalamay inay gudaha aakhirka marka dambe u galaan oo hadda iyo koow adar rag hor leh gudihii ay ka soo dagaalamaan meeshaas alla ilaahay waxa ka muuqata fashil baa ka muuqata ceeb baa ka dhacday ilhaama ka dhacday waana wax ceeb ku ah magaca dadka Soomaaliyeed magaca dadka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay yeysan tani noqon waxaad la yaabtaan yeysan tani noqon wax idin kafaar idin ku rida sababtoo ah waxaan arkay nin khiyaar ah oo runtii dhibaato badan ay nimankaasi hore ugu geysteen xildhibaan weeye hadda markiisa horena wariyuu ahaa afayeen buu soo noqday ninka la yiraahdo macallimo oo warbaahinta soo muqdisho ka hawlgashay qaybtood uga waramayay dhibkii halkaas ka dhacay wuxuu ka tacsiyeeyay qoyskiisii dad qaraabadiisa dhow ah ama xigaaladiisa ah oo dhowr iyo 10 gaariyo halkaas ku dhintay oo dadkii Soomaaliyeed sida arxan darrada ah masaakiinta ah ee halkaas sida arxan darrada loogu xasuuqay kamid ah macallimo laftigiisu waxa uu victim u ahaa oo tira 4 jeer ama 5 jeer ka badan uu ku dhaawacmay qaraxyo nimankaas ay u dhigeen Soomaalidu hore waxay u tiri ilowsha dhawaa ma umulba macallimow mukhtaar
robow cali abumansuur oo ka mid ahaa aasaasayaashii ururka argixisada ee al-shabaab sidoo kalena ahaa ninkii hotel shaamow iyo hargahaya saamaha iyo qaraxyadii xilligu afayeenka ka ahaa ku-xigeenna ka ahaa al-shabaab BBC-dii warbaahinta caalamka siinaya waraysiyada muujinayana una hadlaya sida hadda cali dheeraha afayeenka al-shabaab uu hadlo xilligaas u hadlayay macallimi baa sawir la soo gelayay isagoo qoslayo dhoolla cadaynaya maantana wuxuu ka tacsiyadaynayaa eheladiisii halkaa lagu xasuuqay la isma gaarin al-shabaab ummadda soomaaliyeed dhibaato xun ayay ku haysaa dalkana meel walba waa ay ka soo gashay wasiire ha noqoto xildhibaanna ha noqoto mas-uuliyiin dowladeed ha noqoto kurtigood waa ay ku dhexgaleen dowladda soomaaliya waa ay dhexgaleen dadka reer muqdisho waxaan arkayay mukhtaar robow habeen xaflad intuu kala qayb galay beelaha soomaaliyeed ee sharafta leh ee degta magaalada muqdisho kulan ay qabsanayeen wuu lahaa waad cafiseen waa ogahay inaad cafiseene ii duceeya haye mukhtaarkii shalay aad idin lahaa ii duceeya oo shalayna dhibaatadii hore okeyta idii geystay baa maanta wasiira waxaan sugaynaa kuwa maanta qaban doona shabaabka maanta ka hadli doona hotelkan xayaad ee dadka 40 kor u dhaafaya ay ku dhinteen sida fulxumada loogu dilay kuwa ka hadlaya shabaabka ay dhahaya murtidiin baanu leynay waxaan sugaynaa ayagoo biri dalkaana mas'uuliyiin ka ah oo aad oranaysaan hal la soo dhaweeyo oo aad dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah qabiil ku difaaci doonaan oo ay oran doonaan waa la dambaabaa dambigana waa laga soo laabtaa bal u fiirsada waxaan leeyahay meeshan waxa ka socota waa ruwaayad waxa ka socota waa musalsal waxa ka socota waa filin ajanta ah dadka yaan been loo sheegin dadka reer muqdisho waa dad sharaf leh waa dad cizi leh waa dad karaamo leh laakiin halka cilada ay leeyihiin waxa weeye waa dad ilowsho dhow waa dad dhiigooda markii la daadiyo biri subax hotelkan maanta hadda waxaas ay ka dhacayaan biri meherada ka soo horjeeday isaguba waa ay furan yihiin waa lagu ganacsanayaa waana la ilaawajaa waxaa la ilaaway xasuuqii foosha xumaa hooyadii gabdhihii odayaashii ganacsatadii culimmadii xabadda sidii cadowga beerka looga gelinayay ee googo'aya hilbahooda jawaanada lagu soo gurayo hotelka xayaad waa la ilaawayaa laba qof oo dambo iska wareysanayso reer muqdisho ma jirto iyadoo taasi taagan tahay nin shabaab intuu isi soo dhiibaa waxa la leeyahay waa sargaal hebel iyo waa taliye hebel iyo wasiir hebel adara waa loo qoslayaa birina waxa dhacaya xasuuqa maanta dhacay mid ka weyn baa dhici doona shame on you wax aad looga xumaado waa wax aad runtii looga yaqiiqsado ceeb iyo karaamo darro iyo ilhaamo ayaan ummadda Soomaaliyeed halkaas ka soo gaadhay wax kale aan dhahanuu garanayo waxaan oranayaa bacdamaan gacanta decision maker aan ahayn oo miiska lagu go'aaminayo amniga Soomaaliya anigu aanan fadhin go'aankaygana uusan ka shaqeynin waxa kaliya aan dadka Soomaaliyeed aan tari karaa waxa weeye ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo gabadha joogta waxa la yiraahdo koonfurta Soomaaliya iyo gabadha joogta Puntland iyo gabadha joogta Kilinka Shanaad iyo gabadha joogta Somaliland dhammaantood iyo qof walba oo Soomaaliyeed oo khariidada sadka ah ee maapka Soomaaliya meel kamid ah ku nool waxaan aaminsanahay in dhiigiisa uu yahay dhiig qiimo leh in la karaameeyo in la cizeeyo in naftiisa la badbaadiyo nolol iyo farxad iyo karaamana uu ku noolaado ayaan aaminsanahay waxaan ka xumaa dhibta joogtada ah ee walaalahayga reer muqdisho habeen iyo maalin haysata ma ahan waxay gayaan ma ahan waxa ay xaq u leeyihiin ma ahan wax xamar ka dhacaya wax ummadda islaamka ah ee halka degan ilaahay uu ku kalifay oo ilaahay u qoray ma aha waa wax dulmi ku ah waa wax jaayfo ku ah waa wax lagu dhibaataynayo hal mid baan oranayaa dadka bulshada reer muqdisho hal mid baan oranayaa ha noqdaan ganacsato ha noqdaan siyaasiyiin ha noqdaan dhalinyaro ha noqdaan gabdho ha noqdaan qayb walba bulshada reer muqdisho kamid ah muqdisho waa madaxa Soomaaliya ilaa ay nabad heshana Soomaaliya oo dhan nabad kama hirgeli karto waxaan oranayaa walaalayaalow ilaahay ha ida badbaadiyo ilaahay ha ida karaameeyo ilaahay cadowgan
labada dhinacba inay ka cunaya ilaahayna ha idinka samata bixiyo idinkuna intaad iska daysaan shirarka iyo waxyaabaha maanac darrada amaana yacniga ah ee qabiilka salka ku haya runta abbaara qofku ma aha runta inuu ka xishoodo haddaadan run sheegin waxaa sheegaysaa waa wax ka xun oo ah been ayaa sheegi doontaa dadku waa inay runta iyo waaqiciga ay wajahaan sidaan ma geyda xamar inay ku socoto sidaan ma geyda in dadka reer muqdisho habeenii maalin loo laayo sidaan ma gayaan in maalin walba hoteelkii la dhiso iyo daartii la dhisaba la dudumiyo oo weliba madaxdii soomaaliya ay dhahaan 4 wiiloo shabaaba meesha gasho waa ka saari weyna hoteelka dheha la dumiyo haye adduunka xagee aqligaas ka shaqeeya adduunka xagee aqligaas ka shaqeeya waa in salaamaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wixii aan khalday shaydaan maciisa ayaa ahaatay wixii aan saxan ilaahay ayaa isla siiyay dhammaan ummadda Soomaaliyeed mar labaad ilaahay ha u naxariisto dadka halkaasi ku dhintay inta dhaawacana Allah u boogadhayo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.